Runigood Media wuxuu maanta inala wadaagi doonaa waddadan aad u jeedin. Waddadan waa waddada isku xirta Muqdisho iyo Hobyo, waxayna martaa xeebta iyadoo dhanka waqooyi uga baxda caasimadda Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya, haddase ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Rasadan ayaa waxay martaa deegaano, degmooyin iyo dhulal badan, iyadoona 3 gobol marta. Rasadan ayaa waxay Muqdisho ilaa Hobyo u dhaxaysa sida la sheegay iyadoo kiiloomitir sax aan lahayn 2700. Rasadan ayaa waxay martaa xeebta Goof Dhaxaad, Carre Guduud iyo dhulal kaleba. Wadadan aad u jeedin waa wadadii waxa falay dadka deegaanka, iyadoo deegaan walba xilligii la falayay la sheegay in deegaan walba oo beesha degan ay iska bixisa wadadan. Xilligaas dadkii Soomaaliya ee jiri jiray haddase aan joogno waa dad waxtar u leh dalkooda. Asxaabta beedka Runigood ku xiran iyo kuwa daawa doona mustaqbalka u gaari doona iyo kuwa hadda u gaaro, waxaan ka codsanayaa inay u istaagaan dhulkooda meel walba ay joogaan, gobol walba ay kasoo jeedaan. Qaasatan waxaan ka codsanayaa degmada ka soo jeedaan inay dhistaan, maadaama aasku uu ka bilowdo mar walba hoos. Wadadan waxaa maratay anka xamuulka oo u kala qaado gobolada Shabeellaha Dhexe, Galguduud iyo Mudug. Waxaana baabuurka gobolka Shabeellaha Dhexe ugu xageeyo wuxuu cawaya bari, iyadoo gobolka Galguduud uu maro 2 cawaya bari, iyadoo gobolka Mudug 2 cawaya 2 bari uu maro oo halkaas ku yaryarayo. Wadadan aad u jeedin waa wada aad u qurux badan. Xilliga uu marayana inay caw fiican ay leedahay, geedaha carafta ka soo bixaysa. Laami ma ahan, waa u jeedin waa wada bacaad. haddana markaa tiyaanka asaaranta waxaa ku soo gaaraysa leer macaan ah oo dug ah iyo adoona baawarka tiyaanka saarata muraha ka guraya rasada ku yaala goonkeena sida marcudka, gubashka, dhamaaga, xeel gesriidka iyo wax walbo lamida. Beedka Runigood Media mal walba wuxuu ilaali doonaa, wuxuuna na soo tabi doonaa dhaqanka Soomaalida. Rasadan waxaa la falay sida la sheegay 1960 iyo 1975 ilaa 1994 iyadoona 1920 iyo 1 ay ahayd sida la sheegay wada dhinaca dariiqa oo qolqolaho xamar looga soo doonto badarka. Wadadan hadda waxay isku bedeshay waa wada tiyan, waxaana tiyanka ugu baawarta ugu awood badan ee maanta Soomaaliya ka jira lala sheegay inuu yahay baawar military, iyadoona rar saaciday dad in la saaro oo ku lacaga baale. Waxa soo sadexisay Leyle Calaawi oo la martay jid, iyadoona hadda hoomay dhuf ku bilaabato. Asxaabta waxaan ka codsanayaa wadadan inay si shar galayaan si ay u gaarto madaxda dalka iyo qof cid walba oo dhisa karta dalkooda. Asxaabta hoos fikirka waxaad nagu soo qoraysiin sidoo inay saan ku wanaagsantahay iyo inay laami ku wanaagsantahay. Waad mahadsantahay. Beedka Runigood Media mar walba oo noqo saaxiibkiisa kuwaad mahadsanidin.